Siraad Nuux Cawaale oo kamid ah dadka u ololeeya dadka jilicsanaya maanta si rasmi ah ugu wareejisay guri cusub oo loo dhisay qoyskii iska daldelay marxuum Qaasim Yuusuf Axmed oo dhawaan isku daldelay deegaanka Higlo ee ka tirsan gobolka Saraar. Gurigan lagu wareejiyay qoyskii uu ka baxay marxuumkaasi ayaa ahaa guri baloodh isla markaana loogu talagalay inay hoy ka dhigtaan carruurtii ka baxay marxuumkaasi, waxaana lacagtaasi lagu dhisay gurigani ka soo qayb qaatay dad muxsiniin oo ku nool daafaha dunida. Ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadashay Siraad Nuux Cawaale oo qayb weyn ka qaadatay hirgelinta gurigan cusub ee loo dhisay carruurtaasi, ayaa u mahadnaqday cid kasta oo ka qayb qaadatay qaaraankan lagu dhisay gurigan cusub. halkan aan joogna waxa weeye gurigan u dhisnay agoontii ilma Qaasim Yuusuf Axmed oo aan hawshooda ku jirnay ilaa maalintii aabahood dhintay maalintii ku xigtay aanu ka soo kaxaynay miyigii aabahood ku dhintaan burco guri uga kareynay markaana lagala qayb qaatay oo hormuudka haddaanu nahay hormuudka waxqabadka gobolada bari haddaanu nahay aanu ka hawl qaadanay oo aanu wuxu qabanay oo aanu ilaa intaa wadnay dad badan oo maxay haytay golaha guudna nagala qayb qaatay isaguna gurigan dhiskiisii waxa kale nagala qayb qaatay relief network Soomaaliya Canada ayaa iyaguna $2,000 noo keenay oo nagu soo caawiyay waliba halka noogu keenay markay arkeen maxay haytay si aan uga hawl qaadanayno nagala qayb qaatay hablaha haldoorka Sacad Muuse waxa kale nagala qayb qaatay iyaguna hablo la yiraahdo hoodale holan la yiraahdo iyaguna ayaa nagala qayb qaatay majority-gana hormuudka lahaa waxqabadkiisa golaha guudna uu nagala qayb qaatay runtii si fiican buu nagala qayb qaatay dhammaan iyo dadkii kale personalka ahaa ka soo qayb qaatay faraha badnaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa in allaaliye intii maxay haytay wax nagala qabatay gurigan ama nagala qayb qaadatay ama nala dhistay ama agoonta nala caawisayba aad iyo aad baan maanta halkan uga mahad celinayaa. waxaan leeyahay wixii aad u qabateen maanta waa kuwa maxay haytay wax qabadkiina muuqda waa guriga aanu hortaaganahay maanta xariga ka jaraysay aad isaga soo goysay ilaahay adigana xasanaad iyo khayr ha ka siiyo ilaahay meeshii aad ka soo saartay waxsan ha kuugu bedelo mar haddaad noo hurtay oo aad na siisay dhulkaagii qaaliga ahaa oo aad nagu gacan qabatay faysay ilaahay adigana khayr ilaahay ha kuugu bedelo maalinta qiyaamaha la taagan yahay ilaahay ha kugu maxay haytay ha kugu dambi dhaafo. sidoo kale waxa iyaduna halkaasi ka hadashay marwadii uu ka dhintay marxuum Qaasim Yuusuf Axmed iyo qaar kamid ah eheladii marxuumkaasi ayaa u duceeyay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay dhismaha gurigan cusub. dadka guriga noo dhisay miisaanka sanadka Allah oo saaray Allah barakeeyo lacagtii waan gudoomay hadda waan haya furiina waan haya furiyo lacagtii gacantan ku haya wixii waa gudoomay waa haya miisaanka sanadka Allah oo saaray dadka guriga noo dhisay inaan ka dhintay marxuum ka dhintay aabihii baan ahay taa iyo maalintii marxuumkaasi uu dhintay dadka noo ordayay na soo caawimayay guriga aragtaan hadii maayo idin muuqda noogu halgamayay waanu u mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka wax noo qabtay muslimiinta mid dibad jooga iyo mid gudaha joogaba noo ordayay rag iyo dumar mahad ilaahay baan u celinaynaa waxaan leeyahay wixii wax noogu soo sadaqadaystay harena u bixiyay imikana noo diyaara ilaahay ha barakayo. Siraad Nuux Cawaale qayb weyn bay ka qaadatay agoonta orodkooda u socodkooda u hadalkooda taa iyo maalintii marxuumkaasi go'ay mar qura may fadhiisan waa taa maanta ugu dambeyntii ciyaalkii la soo xireenayo waa taa nala taagan mahad ilaahay ma furi waa taa nagu soo wareejisay iyo lacag wixii ay ugu dambeyntii soo haysay waa taa nagu soo wareejisay u soo hadeebad maayo gabadhii agoonta dhashay ee umusha ahayd waa taa ku wareejisay waa aragtaan mahad baanu iyana u celinaynaa ilaahay ha barakayo. marka hore waxaan salaan iyo hambalyo iyo duco aad iyo aad u ballaaran oo kaliya laaba waxaan farayaa dhammaan dadka muxsiniinta ah ee guriga wanaagsan ee quruxda badan leh ee maanta xarigii ay ka jarayso Siraad Nuux Cawaale ilaahay ha barakeeye ee aynu hortubanahay ee furihiisi maanta lagu wareejiyay isagoo dhameystiran ilaa iyo yaro waxa weeyaan qaliila mooyaane ayaan dadkaas aad iyo aad ugu mahad celinayaa aad iyo aad guriga magaranaysa quruxda badan la ku farayaraystay
agoonta ma garanaysaa u dhisay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof agoona qofka yacni kafaalo qaata ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday yacni janno marka waxaan weeyaa jannada ilaahay yacni ilaahay idin ballan qaaday ilaahay idin geliyaanu leenahay waxaa haysataan ilaahay ha idin barakeeyo meesha ka soo saarteen ilaahay idin barakeeyo gurigii waa aragtaan aniguna waxaan ahay aadan yuusuf axmed baana marxuumka walaalkii baan ahay carruurta agoonta adeerkood gacanta anaa ku hayo odaguna sidaa uu sheegay waxaan xanuunsanayaa marka waxa weeyaan ducada ilaahay baa idin abaalgudaya aniguna waan idin ducaynaynaa waa taas tacabkiini waa kaa muuqday waxaa la baxdeen walaalayaal sadaqo ma garanaysaa lala baxo tii ugu wanaagsanayd sadaqo jaariya oo ilaa qiyaamaha idiin soconaysa weligeed baan idinka go-an inta gurigaasi taagay ayaa la baxdeen marka waxaanu wuxuu yidhi kama hadhay hadhuubkaysi weli hawshii waxa weeyaan dee may dhammaan waxaa hadhay yacni ciyaalka carruurta cid ma garanaysaa weli kafaalo qaadatay ma garanaysaa weli ma jirto marka kafaalo qaadkoodii baanu iyagana dee ma garanaysaa idinka doonaynaa idinkaa iskale waxaa la baxdeen taa hore iyo ma garanaysaa wixii dambe aad la baxaysaanba ilaahay baa miisaanka xasanaadka idiin saaraya ilaahay ha idin barakeeyo dadkaa gurigaa dhisay ilaahay ha barakeeyo waxaan aad iyo aad iyadana ugu ducaynayaa siraad nuux xawaale oo tan iyo maalintii uu marxuum qaasim yuusuf yacni geeriyooday carruurtaa ma garanaysaa hawshooda waday oo habeen iyo maalin aan ka fadhiisan intaa halgamaysay meel walba la hadlaysay maanta ugu dambeysay guriga furihiisa nagu soo wareejisay lacagna wuxuu haysay ku soo wareejisay iminkana diyaar weli oo hawsha wadda ilaahay waxaanu leenahay siraadna waxa weeyaan ilaahay balaayada adduunka iyo taakhiraba ilaahay kaa nabadgeliyo gebagabadii waxay siraad nuux cawaale ay lacag dhan $150 iyo furayaashii gurigaasi ku wareejisay marwadii uu ka dhintay marxuum qaasim yuusuf axmed kuwa midhihii maxay haytay sadaqadiina ilaahay meeshii aa ka soo saarteen waxsan ha idinku bedelo ayaan idin leeyahay $150 oo aanu anagu maxay haytay sadaqatul jaariya oo aanu soo ururnay qoladayada hormuudkaan isugu soo dardarnay na waan ku wareejinayaa iga guddoon furihii guriga aynu taaganahay wakaa gurigaan agoonta u dhisnay furihiisii wataa inantii agoonta dhashay oo mushahayd $150 waa anigaa ku wareejinaya $150 wakaa waa anigaa furihii iyo maxay haytay furihii gurigii aan u dhisnay iyo lacagtii aan u ururnay dambe intii lacagtii ka dambeysay hore aan wareejin jiray guriga lagu bilaabayay intii ka dambeysay lacagtii soo gaadhay iyo inaan ku soo darayba waa aniga maanta ku wareejiyay $150 iyo furihii guriga iyo gurigii waxa qabadkiina midhihiisiina waa kuwa nimankana xataa waxa ka yar dhiman waad aragtaan oo waa ciid waxa ciida daaradii yarayda hore ciida adigu wax yar yar oo xaal baa ka dhiman khaliil barraawraan TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco.